magaalada Cadaad waxaa tababar loogu soo xiray ciidamo ka mid noqonaya booliiska dowlad goboleedka Galmudug. Saade Sayid ayaa warkan inoo faafinaysa. wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa tababar magaalada Cadaad ugu soo xiray 200 oo booliis ah oo muddo 3 bilood la tababarayay. Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe wasiirka amniga Galmudug oo la hadlayay ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa sheegay inay ku soo aadeen waqtigii loo baahnaa. waxay u baahan tahay inaad ka qabtirtaan wixii aad barateen inaad ku fulisaan oo aad ku shaqaysaan hadday noqoto amniga hadday noqoto ilaalinta bulshada hadday noqoto ilaalinta bay'ada waa la socotaan deegaankeena xataa dhirtii nugulka ahayd ayaa la xaalufinaya geed nugulkiiba hadda la jaraa dadka la raba inay waxaas oo dhan ka hortagaan waad adinkaad u joogtiin adinka la idin tababaray hadday noqoto dhaqan xumada inaad ka hortagtaan hadday noqoto inaad ka hortagtaan falalka xun hadday noqoto dadka amniga ku ah dhibaatada ku ah waxaas oo dhan adinka ayaa tababarkeedii qaatay una joogtiin kagana fadhiya haddii aan leedmo Soomaaliya waa ogtiin xaaladda ay ku jirto gaar ahaan Galmudug xaaladeedana waa ka warqabtiin inay tahay xaalad dagaal lagu jiro markii xaalad dagaal lagu jirana alerti baashidan waa inaad dhiifoonataan waa inaad la socotaan dhaqdhaqaaqa cid kasta ee dhibaato ku ah deegaanka iyo dalka